maanta abaaro 4 saac iyo 25 daqiiqo markii ay ahayd waxaan ognahay in toogasho ay ka dhacday magaalada Minneapolis East 34 Street iyo sidoo kale Portland halkaasi ciidamada ICE howlgal ay ka wadeen halkaas waxaa ku geeriyootay haweeney cadaan ah oo hadda magaceeda lagu sheegay Renee Nicole Good oo 37 jir ah sida hooyadeed ay xaqiijisay waxaana haweeneydaasi ay ka mid ahayd dadka legal observers ka la yiraahdo waxaa jira gobol kasta marka ciidamada ICE howlgal ay ka wadaan dad iyagoo volunteer oo si mutadawacnimaha isku xilqaamay isla markaana diiwaan geliya dhibaatooyinka ama tacadiyada ciidamada ICE marka howlgalka ay wadaan ay dadka shacabka ama muwaadiniinta Mareykanka ay u geysanayaan dadkaasi ayay ka mid ahayd marka muuqaalka sida aad aragteenba gaarigeeda ayaa waxa ay ku horjartay gawaari ciidamada ICE ay lahaayeen laakiin hadda wasiirka amniga gudaha shir jaraa'id oo ay Minneapolis ku qabatay caawo ayay faahfaahisay sida ay wax u dhaceen muuqaalada ilaa iyo maanta aan arkaynay iyo bal hadalkeeda sida ay wax u dhigtay aan idinla wadaago wasiirka amniga gudaha Christine oo maanta sida aan idin sheegay xilliga oo shalay waxay ku sugnayd Minneapolis maanta marka arintan ay dhacaysana waxay ku sugnayd xuduudda dhinaca Texas halkaasi oo sida xadka madaxweyne Trump uu ammaan uga dhigay ay ka hadlaysay isla markaana saraakiisha ciidamada xuduudda ilaaliya ay la joogtay maadaama ciidamada xuduudaha ilaaliyo iyo kuwa ICE ba iyada ay hoos yimaadaan marka waxa ay sheegtay in noloshii maanta shirkan jaraa'id inuu ku saabsanaa oo caawa Minneapolis ay ku qabatay gabadhaasi geeriyootay waxay tiri nolol kasta oo dhimatay waxa ay tahay mid masiibaha qof kasta oo dhintay sidaa darteed waxay tiri waxaan taageersanahay in arinta maanta ay dhacday ay ahayd mid laga hortagi karay waxay sheegtay in madaxweyne Trump ay xaaladaasi kala hadashay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Tim Walzna ay kala hadashay oo qadka telefoonka ay kula hadashay marka waxay tiri waxaan rabaa inaan bal xaqiiqda wixii maanta dhacay aan idila socodsiiyo waxay xaqiijisay maanta markii ay ahayd 4 saac iyo 25 daqiiqo waqtiga Minneapolis oo Central Time-ka in ciidamo ICE ah oo howlgal sharci ah ka waday magaalada Minneapolis in gaarikooda uu baraf ka galay waxaan ognahay Minneapolis baraf xoogan ayaa ka da'ay marka gabadha gaariga gaduudka ay wadato gaari kale oo SUV ah oo aan u maleynayo inuu grey yahay ayaa ka horeeyo marka ciidamada ICE gaarigaasi ay wateen baraf ayuu ka galay ciidamo kale oo ICE ay wacdeen marka ciidamadan kale gaariga kale oo pickup 4x4 ka oo gadaal soo istaagaya oo u dhaxeeya gaariga gabadha dhimatay iyo midka barafka ku jiray waxa dhinaca kale ka taagan gaari kale oo ciidamada ICE ay leeyihiin marka waxa ay sheegeen ciidamada ICE oo wasiirka amniga ay xaqiijisay gudaha shirkeeda jaraa'idna ay ku sheegtay in gaarigaasi uu barafka ka galay ciidamada isla markaana ay isku dayeen gaarigaasi inay riixaan si ay barafka ay uga saaraan laakiin waxay tiri kooxo qaswadayaal ah ayaa ilaa iyo maanta markii howlgalku ciidamada ay wadeenba dhibaato ku hayay wadada ayay ka hor istaagayeen way ku qaylinayeen sidoo kalena in howlahooda ay u soo baxeen ay gutaan ayay markastaba oo howlahooda ay ka hor istaagayeen marka waxay xaqiijisay ciidamada ICE ayaa ka soo degay gaarigooda waxayna soo aadeen gaariga qofkan hadda dhintay oo gaariga ay wadato gaduudka sida aad arkaysaan gaariga 4x4 ka ayaa ku dhawaad 3 askari ay ka soo degeen marka gaariga gaduudka oo gabadhan dhimatay ay wadatay ayay soo aadeen kaasi oo blogareynayay gaariga kale ee barafka ku jiray oo ciidamadan ICE ay doonayeen in ay barafka ay ka saaraan markaasi kadib waxa ay isku dayeen in ay la hadlaan iyadoo waliba sheegtay gabadhan dhimatay inay ciidamada in muddo ay daba socotay howlahooda waajibaadkooda inay gutaana ay dhowr mar ka hor istaagtay ilaa iyo maanta markii howlgalka ay wateen waa sida wasiirka amniga gudaha ay hadalka u dhigtay waxay sidoo kale sheegtay ciidamada ICE markii ay soo degeen waxa ay dhowr jeer ay ku amreen inay gaariga ka soo degto isla markaana waa ay diiday inay amarkooda qaadato sida darteed waxa gaariga ay inay dhaqaajiso hub ahaan ay u adeegsato askarta midkii u horeeyay ay doonaysay inay marsiiso oo ay gaariga dul marsiiso sida wasiirka amniga gudaha ay hadalka u dhigtay sida darteedna waxa ay arintaasi ay u arkeen ciidamadu in ay doonayeen askarigu u arkay inay doonayso inay disho amaba sidoo kaleba dhaawac ay u geysato arintaasi oo ay ku tilmaantay weerar argagixiso oo gudaha ah sida ay ku tilmaantay
markaasi kadibna waxay sheegtay askariga rasaasta ku riday inuu naftiisa u baqay sidaasi darteed iyo nafta ciidamada kale ee saaxiibadii ay la socday iyo weliba dadka shacabka ah ee goobta ka agdhowaa markaasi kadib waxa uu riday xabado uu isku difaacayay islamarkaana waxa uu gudanayay trainingkii ama tababarkii lasoo siiyey si uu nafsadiisa iyo nafsada saaxiibadiisba uu u badbaadiyo sidaasi darteed ayaa waxa ay sheegtay in askariga xitaa dhaawac fudud uu soo gaaray isbitaal la geeyey la daweeyey isbitaalkana uu ka soo baxay haddana qoyskiisa uu waqti la qaadanayo sida ay hadalka u dhigtay oo ay u sharaxday wasiirka amniga gudaha shirka jaraa'id oo caawa ay ku qabatay magaalada Minneapolis sidaas ayuu ahaa bal iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa wax yar ay la daawado. I want to start out by addressing the loss of life that we saw here in Minneapolis today. Any loss of life is a tragedy, and I think all of us can agree that in this situation it was preventable. I've spoken to the president today on the situation here on the ground. I also just got off the phone a little while ago with Governor Walz and spoke to him as well. I want to reiterate first with all of you the facts of what happened today. At 10:25 a.m. Central Time, Immigration and Customs Enforcement were carrying out lawful operations here in Minneapolis. Because of the adverse weather that Minneapolis has seen in recent snow, one of the vehicles became stuck and ensnared in the snow. Law enforcement were attempting to push out this vehicle, and when a mob of agitators that were harassing them all day began blocking them in, shouting at them, and impeding law enforcement operations. ICE officers and agents approached the vehicle of the individual in question, who was blocking the officers in with her vehicle, and she had been stalking and impeding their work all throughout the day. ICE agents repeatedly ordered her to get out of the car and to stop obstructing law enforcement, but she refused to obey their commands. She then proceeded to weaponize her vehicle, and she attempted to run a law enforcement officer over. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. The ICE officer, fearing for his life and the other officers around him and the safety of the public, fired defensive shots. He used his training to save his own life and that of his colleagues. He was treated at a local hospital, has been released, and is now with family. dhinaca kale wasiirka amniga gudaha Kristen Om waxa ay ka hadashay sababta ay ciidamada ICE ay Minneapolis u joogaan waxa ay tiri ciidamada ICE sababta ay Minneapolis u joogaan waxa ay tiri waxa sare u kacay dilalka ka dhacaya magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis 50% intii uu xilka hayay gudoomiyaha hadda xilka haya Tim Walz iyo sidoo kalena maayarka magaalada Minneapolis ee Jacob Frey waa duqa magaalada Minneapolis waxay sheegtay gudoomiyaha Tim Walz in 470 dambiilayaal ah uu xabsiyada ka soo daayo wadooyinka uu ku soo fasaxay haddana xabsiyada ay ku jiraan 680 dambiilayaal kala duwan ah kuwaasi oo haddii uu noo dhiibi lahaa uu nagu soo wareejin lahaa dambiyada ay galeen aan sidoo kale waajibkooda aan marsiin lahayn marka waxa ay sheegtay waa ay diidan yihiin duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolkuba in ay nala shaqeeyaan si dadkan dambiilayaasha aan shacabka uga badbaadino laakiin madaxweyne Trump waxay tiri arrintaasi ma qaadanayo waxa ka go'an in dhammaanba wadanka Mareykanka uu mid ammaan ah ka dhigo waxayna xaqiijisay in ICE aysan shalay imaanin Minneapolis wiligoodna waa ay joogeen waa ayna joogi doonaan hawshana waa ay sii wadi doonaan qabqabashada dambiilayaasha dadka sharci darrada ah kuwa wadanka sharci darrada ku soo galay sida ay sheegtay iyo kuwa dawladda Mareykanka musuqmaasuq iyo lacagaha canshuur bixiyaashaba gacanta ku dhigaya isla markaana ay qaadanaya oo xadaya gacanta ayaan ku dhigaynaa iyadoo arrimahaasi ka hadlaysayna mar kale waxa ay tiri. And let me remind you why we're all here in this city today and why we've been here. In communities across this country and here in Minneapolis, we're just enforcing the laws that we have in this country. For years under President Biden, tens of millions of dangerous criminal illegal aliens, terrorists, and suspected terrorists were allowed to invade our country over our southern border. They were allowed to steal, to defraud, and to perpetuate violence against American citizens. Regardless of who your mayor or who your governor is, President Trump promised every single American that he would make America safe again. He promised every single American that he would work to protect them from dangerous criminals. Since Governor Walz has been in charge of Minnesota, we have seen homicides go up by over 50%. That's also during Mayor Frey's tenure as well. Since President Trump took office,
Governor Walz has released over 470 violent criminals back onto the streets here in Minneapolis. He has another 680 of them still within his jurisdiction that he could give to us today to face the consequences for their crimes. Because Governor Walz and Mayor Frey refuse to protect Minnesotans and instead they protect these criminals, that's why we are here. And we didn't just show up yesterday, we've always been here. But we're surging operations because of the dangerous situation we see in this country and because we're no longer going to allow illegal criminals to damage and harm, to kill, to sexually abuse, to proliferate drugs, and to steal American taxpayers' dollars. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa isaguna bartiisa True Social qoraal dhacdada ka dhacday magaalada Minneapolis oo uga hadlayo soo dhigay. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inuu daawaday muuqaalka dhacdada ka dhacday Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana sheegay inay aad u xanuun badan tahay in la daawado. Waxa uu yiri haweeneyda qaylineysay dadka kale goobta joogo marka haweeneyda rasaasta lagu dhuftay qaylineysa ayuu ka hadlayaa. Waxa uu yiri waa dad professional ah oo qaswadayaal ah ayaa goobta ka sugnaa. Haweeneyda sidoo kale gaariga kaxayneysana waxa uu sheegay in ay diiday amarka ciidamada inay u hoggaansanto isla markaana ciidamada ay ka hortimid diidayna in sidoo kale ciidamadu ay qabtaan. waxauna ku tilmaamay inay qaswaday isla markaana sharcigana aysan u hoggaansamaynin sida darteed ay doonaysay inay gaarigeeda marsiiso sarkaalka ciidamada ICE ka tirsan. waxayna u muuqatay ayuu yiri in uu xabadda u riday si uu nafsadiisa isku difaaco. wasiirka amniga gudaha aqalka cad ee madaxweynuhu waxay isku raacsan yihiin askarigaasi in isagu nafsadiisa uu difaacayay. waxaana sidoo kale uu madaxweyne Trump qoraalkiisa isagoo sii wata uu yiri in muuqaalka aan hadda hoos soo dhigay qoraalka uu soo raaciyay sida uu ka hadlayo waxa uu xaqiijiyay inay aad u adag tahay in aan u malaynin ayuu leeyahay ma rumaysanin qofkaasi inuu nool yahay. mar kalena wuxuu leeyahay isbitaalka ayaa lagu daweynaya laakiin haweeneydaasi waaba ay dhimatay. waxaana sidoo kale uu xaqiijiyay in xaaladda hadda la darsayo guud ahaanteeda mana jirto sabab shilka noocaasi oo kale ah uu u dhici karay laakiin waxa uu dhacayaa sababta dhinaca bidixda ee mayalka adag. waxauna ula jeedaa dimuqraadiyiinta kuwaasi oo u hanjabaya weerarna ku ah bartilmaameedsanayana ciidamada howlgallada wada sida ICE ciidamada ICE maalin kasta ayuu yiri. waxauna sheegay inay isku dayayaan ciidamadaasi inay shaqadooda oo kaliya qabsadaan inay Mareykanka ay ammaan ka dhigaan. waxaanan doonaynaa ayuu yiri inaan garab istaagno ciidamadeena iyo sidoo kalena aan ka garab istaagno kooxaha mayalka adag ee qalalaasaha iyo nacaybka wada. marka madaxweyne Trumpna sidoo kale waxa uu leeyahay askarigaasi waa uu istifaaciyay. gudoomiyaha gobolka Minnesota waxa uu ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mid aan wanaagsanayn isagoo shacabkan ugu baaqay inay istajiyaan. already hadda mudaharaadyo ayaa bilowday. gabadhii dhimatay magaceeda in sidoo kale lagu qaylinayo oo dadka mudaharaadka sameynaya ay ku qaylinayaan. maanta maayarka magaalada Minneapolis Jacob Frey waa ka yiri ciidamada ICE ha isaga baxaan Minneapolis laakiin wasiirka amniga gudaha caawa shirka jirayd markii Minneapolis ay ku qabanaysay xitaa su'aashaasi waa la weydiiyey waxay tiri meelna uma socono howlgalkeenana waan sii wadi doonaa.